waxaa runtii farxad iyo hambalyo iyo bogaadinba iska leh maanta 20 arday ee ku guuleystay ama u soo dadaalay inay maanta helaan scholarship-ka dhammaystiran ee dalka Taiwan ay noogu deeqday. waxaan rajaynaynaa insha Allah inay 20 arday ay ka soo bixi doonaan mustaqbalkooda iyo hamiga ay leeyihiin hididooladoodana ay muujin doonaan. waxaynu kale u mahadcelinaynaa dalka Taiwan ee ina siiyay ama inoogu deeqay fursadda qaaliga ah ee 20 arday ee maanta inoo baxay ee isugu jira waxbarashada heerkii 2 iyo heerkii 3. mahad gaar ah ayaynu u celinaynaa dalkaas. ardaydiina tegaysa 20 ah hambalyo baan idin leenahay, bogaadin iyo hambalyo aan halkan idinka diraynaa, waanu idin ducaynaynaa. waxaana la idinka filayaa inaad noqotaan kuwii dalkooda iyo diintoodaba anfaca, model fiican u noqda ardayda dambe bixi doonta, wixii ay soo bartaanna ku anfaca dalkooda haddii ay ku soo noqdaan iyo haddii kalaba. runtii waxa weeyaan fursaddan waa fursad aad u qaaliya, fursadaad hesheen in badan oo kamid ah ardayduna aysan helin. marka waxa loo baahan yahay inaad fursaddiina ka soo baxdaan oo guul ka ciyaartaan. waxa la idinka baahan yahay inaad marka dalkaas inaga fog inta inoo jira aad tagtaan, inaad dhammaanteen inoo noqotaan muraayadna laga daawado oo dalkeena u ah muraayad laga arko leeyahay dalkaas waa dalka noocaasa ma sha Allah ay ardaydaas ka soo baxeen waxbarashadoodu waa noocaas diini ahaan dhaqan ahaan iyo tacliin ahaanba inaad inoo noqotaan muraayad ay dadka kale inagu arkaan maanta inay daawadaan. waxaan idin rajaynaynaa inaad waxbarashadiina ka soo baxdaan, ilaahayna uu idin la gacan qabto. anigu waxaan ka soo baxay xagaas ayaan ku soo bartay. waxaan doonayaa marka kelmad inaan ku iraahdo Chinese inaan ugu mahad celiyo Taiwanese-ka. 谢谢你们能给我们这么难得的机会，这个机会让我们学生和我们的国家都重新认识自己。我要谢谢你们，感谢你们，非常的感谢，在这里所有的人，这里的学生，还有我们的领导，全部，我要代表我们的国家，我要代表我们所有的人，感谢你们。waxaad tihiin dee safiiro maanta la diray sidii la sheegayba, waxaad tihiin dadka maanta ugu horeeya ee ka taga dadka Soomaaliland iyo dalka Soomaaliland ee u anbabaxaya xagga Taiwan. iyagoo markii ugu horeysay ee magaceenu Taiwan la ictiraafo arday inta leega ay noo baxdo ay jiraan arday yar oo tiro yar oo iyagu sidooda isaga soo bixin jiray oo jooga, laakiin iminka ay tihiin ardaydii ugu horeysay ee safaaradda dirato. waxaan ilaahay idinka rajaynayaa guul fara badan. waxaan ilaahay idinka rajaynayaa inaad ku soo guuleysataan safarka cusub ee aad tegaysaan, iyo inkastoo aad tihiin dad majuur oo aydan ahayn dad maanta secondary ka soo baxay tihiin dadka waaweyn ee majuurka waxbarashada iyo jawiga cusub aad tegaysaan. ilaahay ha idin fududeeyo. waxaan kula dardaarmayaa taqwada ilaahay iyo cabsidiisa iyo dhaqankeena Soomaaliyeed iyo dhaqanka islaamka intaba inaad haysataan. marka aad iyo aad baan idinku ducaynaynaa inuu ilaahay idinku garab galo waxbarashadiina. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. horta aad baad mahadsantihiin dowlad ahaan guddi ahaan dadaalka dheer aad samayseen oo only aan scholarship-kan ku koobnayn maanta Taiwan oo kaliya balse scholarship badan oo Ethiopia ka mid tahay dadaalka iyo juhdiga aad samayseen. horta marka hore aad iyo aad baad mahadsantihiin dowlad ahaan iyo idinkaba. marka labaad hal talin soo jeedin lahaa guddida tacliinta sare oo ah ardayda badan waxay qaataan scholarship amba Ethiopia noqoto ama meelo kale maanta way ka mid tahay tan Taiwan. arday walba waxa jira karay ardaydaas inay soo garayaan baahi badan dalku u qaba meelo badan amba beeraha noqoto amba injineeraha noqoto amba caafimaadka noqoto. marka talada soo jeedin lahaa waxa weeye inay data sameeyaan si qof walba oo amba dawladda ha noqoto amba hay'adaha noqoto meel walba ha noqoto u baahan inuu ka dhaxolan karayo intuu guddida tacliinta sare yimaado oo boardka eegan karayo ardayda graduate garaysay title-ka haystaan iyo waxay barteen simply reference loo heli karayo qofkii u baahan uu qofka contact garanayo wixii uga baahan yahay isagoo select garanaya dhowr qof tan qofku u baahan yahay ka qaadan karayo. taas waa talo aan soo jeedin lahaa
kolley iskoorashadu bani wani badan yihiin ardaydu way badan tahay soo noqodkoodu way badan yihiin aqoon waa hayaan marka taa waxaan soo jeedaa in aan aqoonti guriga la fadhiisan amba ahani Taiwan ugu fadhiisan ama meel kale aan u tagin balse in dalka uu ku soo noqdaan qofkii opportunity uu heli karayo macna maalbu filan karayo in la soo heli karayo macna dalkiisina macna qofkii lagu hayn karayo soo wuxuu taro dalkiisa horta alxamdulillah marka koowaad ilaahay baa iskale mahadda oo dhan nagu guuleeyay inaan helno scholarship waliba full ah waliba wadan horumaray oo nu ka soo qaadan karno experience aan wadankayga ku bedeli karno marka labaad dawladeeda wadankayaga aan ku faano madaxdayada noo dadaashay si aan u helno ayaa mahadda iskale waalidkaygii waxna soo baray heerkaana soo gaarsiiyay maanta inaan noqono dad la tartama ardayda caalamka oo kula tartama scholarship-yada ay dawladuhu bixinayaan aan noqono ayaa mahad weyn iskale wadankana siiyay Taiwan aad bay iyaguna u mahadsan yihiin insha Allah waxaan filayaa waxaa soo dadaal ah waalidka wadanka iyo wadamada kalena siinaya deeqahaba inaanu dadaalkooda hoos u dhigin aan noqono dadkii ka faa'iideeya wadankooda wax ugu qabta change la arki karo ku sameeyo wadankooda insha Allah maanta ilaahay baa horta mahad iska leh maanta ay taariikhdu tahay 10kii bishii 7aad in geedi socod dheer kadib sanad kadib aan maanta insha Allah taala halkan 20 arday oo ugu horeysay markii ugu horeysay ka heshay dalka imika aanu xiriirka Somaliland iyo Taiwan ay sameysteen mirihii ka soo baxay inaad idinku noqotaan horta waa wax ilaahay loogu mahadiyo 20 arday oo maanta waxbarasho u tagaysa dalka Taiwan oo markii ugu horeysay yani waxa weeyaan waa guul soo hoyatay way marka ugu horeysa waxa iskale amaanta ilaahay baan horta marka hore alxamdulillah marka labaadna waxaanu amaanaynaa oo aanu u mahad celinaynaa dawladda Taiwan oo maanta nasiisay 20 arday waxaanu rajaynaynaa insha Allah taala inaad dalkiina wax soo barataan oo aad ku soo noqotaan oo aad uga faa'iideysaan dalkiina oo aad marka waxyaabahan eriyooyinkan aad barateen imika sidii la sheegay imika 6 ba engineerina 7 waa caafimaad midna waa beeraha marka 20kiinaba waa eriyooyin ama discipline ay Somaliland aad iyo aad ugu baahan tahay way marka waa fursadda markii ugu horeysay ee idinkoo kale qeyrkiina ay helaan waana aad iyo aad waana wax ilaahay loogu dalka marka waxaan leenahay horta hambaliyo marka ugu horeysa idinka helay idinka iyo waalidkiinba insha Allah taala iyo anaguba iyo shacabka Somaliland iyo dawlad iyo wax oo dhanba waan ku faraxsanahay waxaana noqon doontaan safiiradii ugu horeeyay ee dhulka noo taga model waxa la idinka rabaa hadaba in aad ka turjuntaan dhaqanka suuban iyo diinteena iyo akhlaaqiyadkeena markaad halka tagtaan waxaan idin leeyahay hambaliyo wax badanna waa la idinka filayaa dhulka tagaysan waa dhul aad iyo aad u fog waa dhul dhaqankeena iyo diinteena akhlaaqiyada ka duwan weeye laakiin hadba sidaad nolosha ka dhigataan weeye waa dal tagay weey runtii oo horumaray marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaad idinkoo caafimaad qaba dhulkiina aad ku soo noqotaan farxad bay noo tahay inaan hortiina soo fadhiisano idinkoo ardaydii tagayay dalka la yiraahdo Taiwan dalka wala idinka sheekeeyay inakoo mahad u celinayna waa dal yar oo dadkiisu ka dhigay maxay dal weyn oo tiknoolajiyada meel ka gaadhay oo aqoonta meel ka gaadhay ayaynu maanta aynu marti uga nahay scholarship ama deeq waxbarasho halkan waxaad ugu hor fadhidaan 20 arday oo Taiwan deeq waxbarasho u helay ma dhici doontaa talo haddii alla yari oo aad noqotaan dad muwaadiniina oo ku tagay sharaftii dalkooda iyo cashuurtii dalkooda iyo karaamadii dalkooda oo idinkuna dadaalkii aad dadaasheen wax lagu siiyay talo ma dhici doontaa idinkoo wixii nooli 20kiina waa idinkoo sita inaad soo noqotaan
mise waxaan maqli doonaa ina waanu idan waraysan doonaayo marka horreeyaad hele maba soo noqonayo wuxuu ka shaqaynayaaba Taiwan buu ka shaqaynayaa iyo meelabli uu shaqo tegaya I hope not inaad la tagtaan wadaniyad inaad halkan ku tagtaan wadaniyadna ku soo noqotaan markii deeqdan waxbarasho la idin siinayay soo qof walowba wiil iyo gabadhba idinka ama qualificationkiina hore ha noqoto ama dadaalkiina ha noqoto ama suldaanna idinma soo kaxayn yani cid kalena xildhibaanna idinma soo kaxayn taajirna idinma soo kaxayn dhididkiinni baad waxaa aad ku hesheen laakiin yaad u abaalgudaysaan markaa yaa abaalka idinku leh waxa idinku leh waddankaa idinku leh dalka kan maanta aynu cagaa ku hayno baa idinku leh ninkii wuxuu yidhi yani ma garanaysaa raggii madaxda ahay dunida soo maray wuxuu yidhi I will die for my country and I will not let my country to die for me waxa weeye yani 20kaasaa tihiin muwaadiniin naga tegaysaan dhaqankii baad xambaarsan tihiin diintii baad xambaarsan tihiin aqoontii baad xambaarsan tihiin idinkoo wax ka waaweyn soo bartay inaad nagu soo noqotaan baanu ilaahay aad iyo aad aanu idinka baryaynaa iyo sharaftaa 20 baad tihiin yani waa tiro doola marka waxa weeye 20 graduate oo PhD iyo master soo qaatay oo waliba 3 fiila engineering health iyo science yani ama professional agriculture wax kale noqotay 20kii naasi you can make change yani moogta waxa weeye influence ku waxa weeye marka anana sharaf bay noo tahay inaanu ku faanaano dhahno lodkii ugu horeeyay ee ciidda haddii alla yiri Taiwan cagaha dhiga ee Somalilanderka ahaa yani record-ka markaa waa la idin eegaya mar labaad baan ku soo celinayaa dal baa idin siiyey oo dawlad baa idin siisay oo dalkiinni baad ka tegaysaan idinkoo xambaarsan diintiinni iyo dhaqankiinni waxaanu doonaynaa inaad sidaa aad nagaga dhoofi doontaan inaad dalka ugu soo noqotaan oo dalkiinna aad u abaalgudaan cid kale uma abaalgudaan laba يعني دلكين أو أدو أبال قدان معني وحوي إلى والدكين إلى قف نمدي إنه أبال قدو دكتورة لكن وحن إذن سورة جريء أرنتها وحوي ودلك أينو أركينو إما أنت أينو عيد سيشوجنو ساسانو إذن كويارني ساسانو أي كم تاي أرمها إنه إذن كوسي مع السلامين دونه مركا نقول بأنه إذن رجينا ورتساسانو إذن كو مع السلامين هدي الله يري لكن ما أنت وحنا آدو فرح سمناهي ما ددها إيه سبيشالتي عاد صوب برانيسان وأنا كو أن دون إنه إنه أدقال قالله وأنه إنجنير إسمه أباهن هاي دكاتير بانو أباهن هاي وحنا أباهن أجرونوميست بينو أباهن هاي ساينس سبجكتس بينو مقارنة أباهن هاي